taliyaasha hargeysa sida iyo burco iyo boorama iyo midowba u galay ee dadka u dhameeyeen maanta dhammaantood garow way joogaan oo ay ku taamayaan af 30 iyo 50 sano ka bacdi inay dib u bilaabaan wixii ay geysteen oo ay ku bilaabaan degmadana waa nagaale waxaad weeyaan maanta anigu boo sheego inta Soomaaliya ku hadashay caalamku ay dambeeyay sababta shantii Soomaaliyeed mid walba halkiisii maanta loogu ixtiraamayo ee xuduudiisa loogu ixtiraamayo magacu doonaha la bixee ee Soomaaliya xuduudeeda qura ee shanta dhinacba ka xusan caalamka kaga jirta oo Puntland iyo reerka degeni ee taa hore qabay maanta waxay ugu soo riyoodeen waanu goosanaynaa qayb ka mid ah oo hor qabanayaan u goosanaynaa way iga dhaadhici leedahay hamada intaa la halka keenan waxaanu sheegayaa reer Puntland Morgan baa soo hormarisay halkan aan isku university Hargeysa kabashtii arkeen ku gaaray ilaa Ismaaciil Eriyay haddaad maanta soo noqotana waa isu muuqanaayo waa isnaqaano waa ku edbina adiga iyo adowgaaba ka warwareegi maayo taa shacabka Soomaaliyeed maanta maxaa la gudboon maxay kaga duwan tahay tani maxay dhalinyarada Soomaaliyeed meel joogaan ba u seexan waayeen bishii u dambeysay waxay u seexan waayeen waxay joogaan raadka awayaashoodii ka aabayaashood oo ah manihin dad loo soo hungurado dagaal loogu soo hungurado manihin dad qabkooda iyo xorriyadooda gaal iyo islaam cidina ay faragelin karto dhalinyarada seexan weyday ee bishaa dhan beer xorriyadde fagaaraha khayriyaadhe buracaadhe boorama xalay aragsan wixii ka dhacay mid walba ceer gaabadhe barbaradhe mid walba waxa loo seexan waaye wuxuu ku abtirsadaa inan waliba aabbahooda geesoo dalka dhintay awowgeeda geesoo dalka dhintay aabbihii oo ka tariyey awowgeeda ka tariyey oo ka hiray hadduu Maraykan yahay iyo hadduu Ruush yahay iyo hadduu reer xisbood yahayba mid walba idbiyey waxay kaga duwan tahay waxaanan qaadan karin in la yiraahdo xadka Soomaaliyeed baa badh la goynaya ma qaadan karo shanta Soomaaliyeed xuduudooda amba way wada burburi waan ku celinayaa shanta Soomaaliland mid walba xisbi waa la fargelay xadkeeda haddii ka Soomaaliland oo qura ay tahayna waa daafacaynaa oo dagaalku joogsan maayo inta taaka kamida xadka Soomaaliland uu cad Soomaaliland ku jiro abku doontaa sheegtay ma aha dagaalka iyo ciidanka iyaga iyo dadka ay qaar dagaalka loo diraayo ma aha mid loo tilmaamayo shalay waxa soo maray dhaawac waa laga arkaa cajalada dad baa u qaado oo dhiirigelinaya faa rag aan wari kabin oo ku xiran yihiin birihi lafu ayaa ka booda sirtoodo madaxweyne dagaalka waa ku noqonaynaa tan Britay bogsanaysa mid iyo laba iyo saddex iyo afar toban maahan qadiyada Soomaaliyeed halkaas ay ka joogtaa shacbiga Soomaaliyeed ama madaxa ahaado ama baacimshar ahaado ama sheekha ahaado ama geejiraha ahaado ama rag ahaado ama dumar ahaado waa qadiyadoo siman yahay oo ilaa iyo 60 ilaa maanta loo soo halgamayay oo inta loo soo dhimanayay oo inta oo halgana soo maray kamanaha kanana ilaa aanu gaadhno qastiga Soomaaliland oo xadkeedu midaysan yahay oo dadkeedu midaysan yahay oo qayrkeed iska celisa oo ka muuqata caalamka taanina baryimayn hadday dadku doonayaan waxay dadku doonayaan waa iraada Ilaahay oo kale ida shacbu yawman araada al-haya fala yastajiba an yakuna qadar war hadduu dadku wuxuu doonayo maro wax kasta oo suurtoobaya xaru tirtooradu haddii ragtaa tabiyo rabbana haddii ragtaa rabbana tawan tabiyo taladu way toostaa ilaahayna waana garab gelayaa talada xadka Soomaaliland iyo difaaceedana waa midaysanna ninka hadlayo dagaal raga dheeldheelayo dagaalku wuu soconaya ilaa taaka Soomaaliland laga saaracado wuu soconayaa intuu doona ha qaato waqti ha qaato dhiig ragga ha qaato
xoolaha qaato dagaalku wuu socday dalkan u xoreyn ninna dulmi mayno ninna ku xadgudbi mayno ninna ka yeeri mayno gardar intaas waa Soomaali gudaheeda waxaan ku oranayo dawladaha caalamka cid walba nabad baan u haynaa iskaashi baan u haynaa mid un baan u sheegaynaa Soomaaliland baan idhaahdaa awoowayaashayo odayaashayo iyagoo waxna qorin waxna akhriyin ajnabigaan aan aqoon ayay u yimaadeen nimankii cadda dabeetana waxay idhahdeen waxaanu doonaynaa caalamkii oo dagaal ka socdaa inaanu iskaashano waxay yidhaahdeen waxaan ugu kaalanaysaa waxay yidhahdeen xaggana qolaa ka socota xaggana qolaya aan isla jiirine waxaanu doonaynaa inaanu dalkeeda inaanu oynu saaxiib noqono waayahay bay yidhaahdeen odayaasha waqtigaa joogay 100 sano iyo dheeraad ka hor waxay yidhahdeen waayo horta heshiiska dhulka ay kula saxan hadhowna ku murmanaaye baddaa inagee baddaa la tegey kow markaanu kudhaa naga tag qor laba si aanad noo dhex gelin gabadhaadu day u leedahay yaani ciidda naga markab kaa saar ama xaggaa geysa ama markabaa ku dhasho haddaad carruurtaadu halkaan igu dhalato waynu ku murmaynaa taladayada waxaynu iska heri dusha naga ilaaliye taladayada annagaa leh wixii aanu kaaga baahno ahlan wa sahlan laakiin ma maamuli kartid oo talada ma geli kartid dawlad kasta oo xoog leh dawlad kasta oo lacag leh oo lacag wax ku boqoraysa mid walba waxaanu leenahay fariintii awliyaashaanu haynaa ninkana caawinayo waynu iscaawinaynaa waxaanu raalli ka nahay qaadan mayno caad quuleed oo dhaqaale lagu sheegayo kaalmo oo taladayada lagu soo fargeliyo iska haysa lacagtaada badan dawladdu bashar fi ixtiraam baan u haynaa mase jirta dawlad oranaysa saa yeela oo lagu tana qaban karta qodobka ugu dambeeya tala wadaag baan ku noolnahay Soomaalida haddaynu nahay weliba haddaynu nahay Soomaaliland oo ka sii xag jira talada weyn wada leenahay dalka laba kala leh waxay noo caadiya dhaqan ahaan jirtay haddii shir socdo oo dhammaad ku dhow oo nin dhaan wataa yimaado intuu awrka joojiyo geedka xudhaabuu idhaahdaa hal dhaawata ma idhaahda caadayna mayna odhan jirin maya talada maadigoona way dhammaatay oo maanta ilaa xali baa loo fadhiya ka daa waxaa hore loo yidhi taladu waa baadi nin helina alla og markaa ninkaasaa la idhahdaa waaye adiguna dhulkaada rido taladiisuu dhibta awrkiisana u kaxaysta dawladda Soomaaliland taasay ku dhisantaha lagu soo asaas ama dimuqraadiyad u bixi ama watashi u bixi ama tawdhaqan u bixi Soomaaliland waa tashanaysa hadba ciddii loo gartana waxaa loo dhiibayaa xilka iyo hoggaaminta dalka waxaanu nin walba u sheegayaa dalka sidii loo maamulayay ee tala wadaagga ahayd ee doorashada ahayd ee kolba ninkii la doortaa ku soconaya ayaynu ka hergelaynaa aniguna halkan intii doorashada iyo shacbiga wixii ay oggolaadeen iyo sharciyadu maan ku joogaya ka iman doona intaasi ku joogaya kuwii naga horreeyana sunno wacan bay inoo jeexeenoo mid walba markii la yidhi xilkaagu dhammaaday uu ka wareegay doorashadaasaa laga qaaday socdo waxaynu u diyaar garoobaynaa doorashooyinkii cadowgu noogu talamayo doorashadeeda caalamka beesha caalamku doorashada soo fargelmayso kama taliso sharciga ma fargeliso ninka u qashlaana waa nacas ee tolkii aamini waayey dalkiisa dhaqaalaha doorashada Soomaaliland buu yaalla haddii dhaqaalaha waanku taageeraya talada ay dhib ma yeelno yeelina mayno dhaqaalahana innaga isugu filan waxaa soo daaraynu leenahay waxaa soo fooqaynusan waxaa soo dhaqaalaynu haysannaa haddaynaan talada gelin dhaqaalaha siday u hagaagayso oo aynaan iska moosin dhaqaalo talada la soo geliyo oo noocyo badan maskaxda laynaga qabsanayaa ka bacdina sida dawladaha qaarkood baanu inagu isku wareegaysa inaan isku wareejinaya dhaqaalaha doorashadeenna innagaa maamulayna ku talagal mar labaad baan hambalyanayaa shacbiga Soomaaliyeed meelay joogaan geesiyaasha qaranka ee ciidamada qaranka ee kala duwan waa ku dhaadanaynaa waa ku qabweynahay kuwayna seexan waayeen iyaguna waa geesiyaal qaranoo soo socda waa ku dhaadanaynaa
بعض عافيمات كم مرة هرنا واخد أضرنا نظام كله وشو غيب قلين إيرجالين تا أبو أنذا يدرك ترقبينك يدورك أي قلب خلتها جيه العيد ما يودنا واخد أضرنا إنه قوم يسون السومال ويسكت أضرنا أي نعذب ونربح كسر ذلك وحي سوق عليه نرى هاي تورين وحتى ما كتصبي هذه أدوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.